بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا مركله iyo barnaamijkii qubanaha qodobada caawa barnaamijka aan idinkugu haynana waxa kamid ah Turkiga oo caawa si dadban ugu hanjabay Israa'iil isla markaasna sheegay inuu faragelin toos ah ku samayn doono Suuriya haddii la isku dayo in la kala qaybiyo wadankaasi dhinaca kale hogaamiyaha mucaaradka Israa'iil oo soo saaray qayladhan ba'an oo ku aadan qorshaha Turkiga uu ku iibsanayo diyaaradaha dagaalka ee Eurojet Fighter Typhoon oo ay farsameeyaan Jarmalka iyo Britain dagaalyahanada iska cabita Gaza oo ka warbixiyay hawlgal ay ku qararamsadeen taangi ay leeyihiin ciidamada Israa'iil Saraya al-Qudus oo ku dhawaaqday in ay la adahay xiriirka kooxdii gacanta ku haysay mid ka mid ah maxaabiista Israa'iiliyiinta dhinaca kale militariga Israa'iil ayaa qirtay qasaaro hor leh oo ciidankooda ka soo gaaray dagaalada ka socda marayka Gaza Hamas oo caawa baaq kulul oo dhaliil xambaarsan u jeedisay dunida Carabta iyo Islaamka Israa'iiliyiin caawa banaanbax hadal hayn dhaliyay oo ku aadan Gaza ka dhigay Tel Aviv haddaba muxuu yahay banaanbaxan aad ka loola yaabay yahay oo ka duwan kuwii hore faahfaahin baan idinkaga haynaa Iiraan iyo Ruushka oo xoojinaya xiriirka militari kadib dagaalkii Iiraan iyo Israa'iil dhex maray sheekada ugu dambeysay barnaamijkan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay dawladda Ruushka oo lagu wado in gabi hamba ay mamnuucdo WhatsApp-ka isla markaasna soo bandhigtay ab cusub oo lagu bedeli doono kaas haddaba dhammaan qodobadan iyo weliba warar kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay intaaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa war weyn oo Turkiga ka soo baxay kaasi oo ku aadan wadanka Suuriya haddaba wakaaladda wararka Anadolu ee laga leeyahay dalka Turkiga ayaa waxay sheegaysaa in wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan uu ka digay waxa uu ku sheegay in ay yihiin kooxo kala qaybinaya wadanka Syria isagoo sheegay in haddii kooxahan ay u dhaqaaqaan kala qaybin iyo carqaladeyn Ankara arrintaasi ay u arki doonto halis toos ah oo ku wajahan amniga qaranka Turkiga isla markaasna faragelin toos ah ay ku samayn doonto dalka Turkiga wuxuu tusaale u soo qaatay dhacdooyinkii ka dhacay magaalada Suwayda toddobaadkii hore Fidan ayaa fariin wuxuu u diray kooxaha doonaya in ay kala qaybiyaan Syria wuxuuna yiri ha u qaadinin foodo noocaani in ay yihiin fursado yaryar iyo xeelado siyaasadeed oo idin anfici kara wasiir Fidan ayaa ku eedeeyay Hikmat al-Hijri oo ka mid ah madaxda ruuxiga ee firqada Druuska ee al-Muwaxidiinta in uu u dhaqmayo sida wakiil gobolka Israa'iil ay ku leedahay isagoo carabka ku adkeeyay in Israa'iil ay doonayso inay dhaawacdo xasiloonida iyo amniga Suuriya isla markaasna ay wado faragelin ku aadan arrimaha Suuriya iyadoo marmarsiyo ka dhiganaysa ilaalinta dadka Druuska ah wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga wuxuu sidoo kale sheegay in quwadaha gobolka gaar ahaan Israa'iil inaysan doonayn in Syria ay hesho madax banaan dhammaystiran iyo midnimo dhuleed isagoo intaasi ku daray Israa'iil inaysan doonayn in ay aragto dawladda xasiloon oo dariskeeda ah waxayna ku hawlan tahay buu yiri kala qaybinta Suuriya Fidan wuxuu kaloo sheegay in dhammaan gobolada Syria ay tahay in ay hoos yimaadaan xukuumadda dhexe ee fadhigeedu uu yahay magaalada Dimashq wuxuuna ku nuuxnuuxsaday in dalkiisa Turkiga uu la shaqeynayo dhammaan dhinacyada Suuriya si loo sugo xasiloonida loona xoojiyo waxa uu ku tilmaamay qorshayaasha qatarta ah ee Israa'iil waxa sidoo kale uu carabka ku adkeeyay in loo baahan yahay in arrimihii ka dhacay xaaladda Suwayda aysan dhicin isla markaasna la dejiyo xaaladda isagoo tilmaamay in xasilooni iyo amni halkaasi in lagu soo dabaala ay tahay mid dadka Syria ka caawinaysa inay ilaashadaan amniga iyo xasiloonida gobolka iyo guud ahaan dalkaasi hadalkan Fidan ayaa waxa uu yimid intii lagu jiray shir jaraa'id oo ay wadajir u qabteen isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka El Salvador Alexander Hill oo booqasho ku tagay dalka Turkiga
toddobaadkii hore madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa ku eedeeyay Israa'iil in dadka Druuska ay u adeegsanayso marmarsiyo si sharci darro ah ay uga howlgasho gudaha Suuriya wuxuuna hadalkan jeediyey kadib markii wadahadal qadka telefoonka oo kula yeeshay dhiggiisa dalka Syria Ahmed al-Sharaa wuxuuna muujiyey in uu si adag uga soo horjeedo burburinta midnimada waddanka Suuriya waa hagaag haddaba intayna ka bixin wararka waddanka Turkiga iyo Israa'iil hadal kale oo aad u culus laakiin loo qaatay inuu yahay baaq calaacal ama qayladhaan ah ayaa waxa uu ka soo yeeray hogaamiyaha sare ee mucaaradka Israa'iil Yair Lapid aynu eegno war arrimahan la xiriira oo warbaahinta Israa'iil ay qorayso hogaamiyaha mucaaradka Israa'iil Yair Lapid ayaa si kulul u dhaleeceeyay xukuumadda Israa'iil ee uu hogaamiyo Netanyahu kadib markii ay ku guuldareysatay inay ka hortagto iibka diyaaradaha dagaalka ee Eurofighter Typhoon oo Turkiga uu qorsheynayo inuu helo diyaaradda Eurofighter Typhoon oo ay wadajir u soo saaraan wadamo Yurub ah ayaa ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee jiilka 4.5 loona aqoonsaday in ay tahay mid ka mid ah diyaaradaha ugu casirsan qoraal uu ku daabacay baraha bulshada ayaa Lapid wuxuu ku yiri haddii Israa'iil ay lahaan lahayd wasaarad arrimo dibadeed oo shaqaynaysa ama xukuumad caadi ah waxay horay u joojin lahayd heshiiska ay Jarmalka iyo Britain ku doonayaan in diyaaradaha Eurofighter Typhoon 4.5 uga iibiyaan Turkiga Lapid waxa uu ka digay arrintaasi gaar ahaan Turkiga inuu raadinayo in uu gaarsiiyo awoodiisa dhanka ciidamada cirka mid la siman tan Israa'iil sida hadalka uu dhigay isagoo hadalkiisa si aan baqaadaya wuxuu yiri Turkigu durba wuxuu leeyahay ciidanka badda ee ugu weyn uguna awoodda badan bariga dhexe wuxuuna hadda ujeedkiisu yahay inuu gaaro awoodda xagga cirka oo la mid ah tan Israa'iil tani waa halis wuxuu yiri waa nasiib darro in dawladdeenu ay fashilantay gaar ahaan inay ka hortagto heshiiskan ama ay ogolaato in ay wax ku socdaan sida imika wax ku socdaan bishii February madaxweyne ku-xigeenka dalka Turkiga Cevdet Yılmaz ayaa sheegay in dalkiisa uu soo dhaweynayo horumarka wanaagsan ee laga gaaray wadahadaladii ay la yeesheen Britain ee ku saabsanaa helitaanka diyaaradaha dagaalka ee Eurofighter wasiirka difaaca ee dalka Turkiga Yazir Golar ayaa isna bishii November waxa uu ka shaqeeyay in Turkiga uu qorsheynayo in uu soo iibsado 40 diyaaradahaasi kuwaasi oo ah diyaaradaha dagaalka oo qaban kara hawlo kala duwan Israa'iil marka waxay leedahay Turkiga hadda waa naga awood badan yahay marka la eego xagga ciidanka badda dabcan dhanka dhulkana oo ka awood badan yahay Israa'iil marka gobolka bariga dhexe waxay ku haysataa waxa weeyaan xagga cirka oo ay xoog saartay iyadoo isku halaynaysa Mareykanka laakiin Lapid wuxuu leeyahay imika waa la soo gaaraya waliba arrimo kale oo muhiim ah oo la xiriira Turkiga oo soo bandhigay hub casri ah barnaamijka subaxnimo ee xulashada wararka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa arrintan oo ah mid xaaladda gobolka bariga dhexe wax weyn ka bedeli doonta waa hagaag sida uu aragto dhammaan arrimahan noogu reeb qaybta fariimaha ee barnaamijka imikana Moscow aynu u dhaqaaqno halkaasi oo lagu soo waramayo in wadahadallo heer sare ay ku yeesheen mas'uuliyiin ka socota Iran iyo Ruushka wakaaladda wararka ee TASS ee laga leeyahay waddanka Turkiga raali ahaada waddanka Ruushka ayaa waxa ay sheegtay in wasiirka gaashaandhigga ee Iran General Sare Aziz Nasir Sadeh wadahadallo heer sare ah uu kula yeeshay magaalada Moscow wasiirka difaaca ee Ruushka Andrei Belisov taasi oo muujinaysa isafgarad sii qoto dheeraaday oo dhanka militariga ah oo u dhaxeeya Tehran iyo Moscow kulankani wuxuu yimid kadib dagaal xooggan oo 12 maalmood socday oo dhex maray Iran iyo Israa'iil kaasi oo dhamaaday dabayaaqadii bishii aynu ka soo gudubnay ee June isla markaasna si weyn u bedelay xaaladda dhanka istiraatiijiga ah ee gobolka sida ay sheegtay warbaahinta dawladda Iran labada wasiir ayaa ka wada hadlay ballaarinta iskaashiga militari ee dhanka istiraatiijiyadda iyo xoojinta awoodda difaaca ee labada dal safiirka Iran ee Ruushka Kazim Jalali ayaa xaqiijiyay in wadahadalladu diiradda saareen xaaladda gobolka iyo siyaabaha loo xoojin karo fahamka wada jirka ah ee dhanka difaaca
booqashadan ayaa daba socotay dadaal dhanka diblomaasiyadda oo Tehran ay waday waxaana axadii kulan magaalada Moscow oo ku dhex maray madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo Ali Larijani oo ah la taliye sare oo u ah hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei kulankaasi ayaa la sheegay inuu xoogga saaray xasilinta gobolka kadib dagaalkii dhacay iyo iskaashiga dhanka u dhaxeeya labada wadan gaar ahaan cadaadiska military ee Mareykanka iyo Israa'iil ay ku hayaan Iran arrintan marka waxay ku soo aadaysaa iyadoo dhaliil badan ay ka imaanaysay dhanka Iran oo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Iran ay si ba'an u dhaliilayeen Ruushka oo ay lahaayeen dagaalka waa nooga baxay Iran imika isku haleymaysa Ruushka oo kaliya dabcan dhanka Shiinahana way weecatay oo sidaynu barnaamijyadii hore idinkugu soo gudbinay waxay doonaysaa inay soo iibsato inkastoo leeyahay diyaaradahaasi qaar baba soo gaaray Iran diyaaradda casriga ah ee la yiraahdo J10 iyo haatan xagga qasa aynu ka hormarno gaar ahaan hawlgallo culus oo dhacay iyo Israa'iil oo qiratay qasaaro hor leh oo dhimasho dhaawac isugu jira oo ciidankooda ka soo gaaray dagaalada ka holcaya Mareykanka Gaza waxaynu ka hormaraynaa war goor dhawaata ay soo saareen dagaalyahanada Al-Qassam garabka military ee ururka Hamas ayaa waxa ay ku sheegeen hawlgal ay ka fuliyeen Daarabalax inay ku beegsadeen taangi ay leeyihiin ciidanka Israa'iil waxaana ay sheegeen fariin ay soo dhigeen barta Telegram-kana ku xuseen in taangi markaba ah iyagu adeegsanaya qoriga Al-Yaasiin 105 inay ku gubeen aaga deegaanka la yiraahdo Al-Jafrawi oo ku yaala koonfurta bari ee Daarabalax dhinaca kale waxay sheegeen in ay arkayeen dagaalyahanadooda ciidanka Israa'iil gaar ahaan diyaaradaha qomaatiga u kaca oo halkaasi yimid waxaana warku intaasi ku daraya in halkaasi ay ka daabuleen dhaawacyo diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil war hadda soo dhacana waxa uu sheegayaa in militariga Israa'iil sidoo kale ay qirteen askari ka mid ah ciidankooda oo ku geeriyooday dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacay Mareykanka Gaza isla intaynu barnaamijka ku jirnay war degdeg ah oo hadda soo dhacay wuxuu sheegayaa 5 askari oo ka tirsan ciidanka Israa'iil in lagu dhaawacay koonfurta Mareykanka Gaza waxa la leeyahay laba ka mid ah dhaawacoodu aad buu culus yahay sida ay xaqiijiyeen ilowradii laga helay dhanka militariga Israa'iil xagga qasa aynu ku sii soconnay kooxda Saraya al-Qudus ayaa waxa ay sheegeen in ay la'yihiin xogta iyo xiriirkii kooxdii gacanta ku haysay maxbuuska askariga lagu magacaabo Rom Baraslavsky afayeen uu hadlay dagaalyahanada iska caabinta Falastiiniyiinta ee Saraya al-Qudus ayaa waxa uu sheegay in unugan gacanta ku hayay maxbuuskan la la'yahay xogtooda iyadoo la tuhunsan yahay in markaasi halkaasi saameyn ay ku yeesheen hawlgallada ugu dambeeyay militariga Israa'iil ay qaadeen afayeenku waxa uu ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo xukuumaddiisa midagta fog inay si ula kaca ay isaga indhatirayaan digniinaha ku aadan dagaalku in uu waxyeello u geysan karo maxaabiista lagu hayo Mareykanka Gaza waxaana ay sheegeen in ay ku hawleeyeen dilka askartooda halkii iyagoo nool la badbaadin lahaa ayay waxay doonayaan buu yiri iyagoo mayd lagu sido oo naxasha in halkaasi laga qaado qoyska Rom Baraslavsky ayaa waxay muujiyeen walaac sii kordhiya ee ku aadan warkan ka soo yeeray iska caabinta Falastiiniyiinta waxaana ay dalbadeen inay la kulmaan taliyaha guud ee ciidanka Israa'iil ama wasiirka difaaca iyagoo ugu baaqay xukuumadda naga daaya dagaalka oo runta noo sheega isla markaasna xogta ku saabsan Rom ayaan u baahannahay bay yiraahdeen isla arrimahan Gaza waxaa isbitaalada Mareykanka Gaza laga soo xigtay in maanta oo kaliya 81 qof lagu dilay duqeymaha iyo weerarada Israa'iil waxa leeyahay 31 ka mid ah dadkaasi ayaa waxa la sheegayaa in lagu dilay goobaha raashinka laga qaybinayo way intaan idin soo gudbin Hamas oo war adag soo saartay waxaynu haatan u leexanaynaa dhanka magaalada Tel Aviv caaw banaanbax ka duwan banaanbaxyadii hore ayaa ka dhacay Mareykanka Gaza 24 saac la soo dhaafay 15 qof ayaa wax u geeriyay gaajo 72 saacadood dad ku dhow 100 qof ayaa gaajo u geeriyooday carruur bay u badan yihiin dadkani waxaa leeyahay xitaa shaqaalaha caafimaadka ayaa waxay leeyihiin hal mar ayaa wax cunaa maalintii ama marka qaarkood labadii maalmood baan hal mar dadka caadiga iska badaaba gaajo tii ugu darnayd baa ka jirta meesha
caaw marka waxaan idin haynaa israa'iiliyiin banaanbax ku soo bandhigay talaabiib oo dalbanaya in go'doominta laga qaado marayka qase oo gargaarka la ogolaado dagaalkan la joojiyo haddaba warbaahinta israa'iil ayaa waxay tibinaysaa in banaanbaxan ay iskugu yimaadeen dad aad u fara badan sida halkan idinkaga muuqatay waxay siteen boorar ay ku masawiran yihiin caruur nafaqadarra ay haysato iyo halkudhigiyo af carabi ah iyo afka hibruuga ama cibraaniga waxaana ay dalbanayaan si degdega arrintan in wax looga qabto iyagoo leh waa in dagaalka la joojiyaa waa in caruurta marayka qase la daryeela oo gargaar loo fidiyaa oo dhibaatada laga daaya waxaana ay leeyihiin dagaalka si degdeg ah lagu joojiyo caruurtii falastiiniyiinta ayay sitaan caaw israa'iiliinta waa la yaabay xitaa ma ahan yuhuudda caadiga ah oo ogol dhulkan falastiiniyiinta inay iska leeyihiin ayagu aysan dowlad noqon karin weligoodna noqon karin maraykanka iyo yurub ayay banaanbaxyada ku soo bandhigaan xitaa waxaa jira kuwa yuhuuddaas ka mid ah oo qudusta la haysto iyo talaabiib degan meelaha ay degan yihiin xitaa calanka falastiiniinta ayaa u sugan marka aad baa loola yaabay caawa arrintan banaanbixii caadiga ahaa oo lagu dalban jiray dadka ha la soo daayo maxaabiista ha la soo daayo dagaalka ha la joojiyo iyo sawaradii maxaabiista la haysto ayay waxay ku bedeleen caruurtii falastiiniyiinta oo gaajoonaysa oo dhibaato ay haysto waxay leeyihiin bini'aadantinimada ha la eego dagaalkana ha la joojiyo caruurtaasna ha loo fasaxo raashinka iyo gargaarka oo marayka qase ha laga joojiyo go'doominta waaye laakiin arrinta la yaab kale waxay tahay marka sida xamaas ay sheegayso dunidii carabta iyo islaamkii cid far nuuxinaysaa ma jirto xitaa banaanbax ma jiro adigu weligan ma ka maqasheen sacuudiga laga bannaan baxay imaaraadka laga bannaan baxay qatar baa laga bannaan baxay xitaa masartaas lama ogola jordan xitaa afka la qabanaya dadka inay bannaan baxaan israa'iiliyiinta dadkooda lagu haystay marayka qase oo askartooda dhibanayso ayaa caaw bannaan baxayso waxay leeyihiin waxaan wax macquula ma ahan bini'aadantinimo ma ahan waaye haddaba aynu eegno warbixin goordhaweyta ay soo tuurtay wakaaladda wararka Anadolu ee laga leeyahay waddanka Turkiga ururka Xamaas ayaa wuxuu soo saaray bayaan ugu baaqayo madaxda dalalka carabta iyo kuwa islaamka inay qaataan go'aan taariikhi ah oo lagu qaadayo go'doominta lagu hayo marayka qase laguna soo afjarayo gaajada waxayna dhaleeceeyeen in la fulin waayey go'aamadii ka soo baxay shirkii wadajirka carabta iyo islaamka ee lagu qabtay magaalada Riyaad dabayaaqadii 2023 bayaanka oo lagu daabacay barta telegramka Xamaas waxay ku sheegtay in gaajada ka jirta qasa ay gashay marxalad halis ah oo aan horey loo arag kadib go'doomin buuxda oo Israa'iil ku soo rogtay tan iyo 2 bishii March ee sanadkan Xamaas waxay tilmaamtay in ku dhawaad 100 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan 80 caruur ah inay u dhinteen gaajo iyo nafaqo xumo iyadoo in ka badan 1,000 qof oo kalena ay u dhinteen xabadaha ciidamada Israa'iil ay ku furayaan dadka gargaarka ku sugaya goobaha lagu qaybinayo raashinka Xamaas waxay si kul u cambaaraysay aamusnaanta rasmiga ah ee carabta iyo islaamka ee ku aadan waxa ka dhacaya qasa iyadoo sheegtay in jawaabaha iyo go'aamada la soo saaray aysan u qalmin heerka masiibada ay wajahayaan 2,250,000 oo qof oo Falastiiniyiin ah oo ku dhaqan marayka Gaza waxay carabka ku adkaysay Xamaas in aamusnaantan xanuun kale ay niyad jabisay rajadii shacabka la dulmay ee reer Falastiin ay qabeen ayna ka qabeen hogaamiyaasheena ummadda ayaa la yiri isla markaasna ay dhiiri gelinayso Israa'iil iyo ra'iisul wasaaraheeda Benjamin Netanyahu in uu sii wado gaajaysiinta iyo dabargoynta bayaanka Xamaas ayaa sidoo kale waxa lagu yiri shacabka iyagoo way gaajaysan yihiin oo way haraad qabaan halka kumaan kun oo gargaar ah ay ku xayiran yihiin dhanka Masar ee isgoyska Rafah xilli xukuumadda Israa'iil ay wado qorshe xasuuq iyo duleyn ah oo lagu maamulayo gaajaysiinta Xamaas waxay ugu dambeyntii ugu baaqday dowladaha carabta iyo islaamka inay xiriirka u jiraan Israa'iil oo ay cayriyaan safiiradooda ayna xiraan safaaradahooda taas oo ay ku sheegtay tilaabadaas inay noqon karto mid hordhac ah oo lagu go'aaminayo Israa'iil in markaa la cabsi geliyo si ay u joojiso xasuuqa ay ku hayso shicibka Falastiiniyiinta ee la gomaadayo sidaas ayay Xamaas ku soo koobtay bayaankeeda way sheekada marka baraha bulshada qabsatay warkan Xamaas ka soo baxay iyo banaanbaxan ka socda marayka Gaza wadamadii carabta oo fantasiya iskaga jira bandhig faneediyo xitaa lacag badan lagu bixinayo dadkii marayka Gaza oo baahi la ildaran iyo Israa'iiliyiin u banaanbaxaysa marayka Gaza oo leh gaajadan inta ka badan looma dul qaadan kara hal la joojiyo
dadkii carabtaha baraha bulshada iyo muslimiinta halkaas ayaa lagu falaqaynayaa galabta ilaa iyo caawa sheekadan waa tahay adigoon ra'yigaaga daawade nagula wadaag qaybta hoose ee fariimaha sheekada ugu dambaysa ee barnaamijka aynu weecanno dalka ruushka dhawaan waxaa lagu wadaa in la joojiyo gebi ahaanba isticmaalka whatsappka taa beddelkeedii shirkad laga leeyahay waddanka ruushka oo xiriir la leh dowladda waddankaasi ayaa waxay soo saartay ab cusub oo wada shakaysiga haddaba aynu egna warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee taas ee laga leeyahay dalka ruushka waayahay waxaa jirta 99% baa layidhi fursad ah in dowladda ruushka ay si rasmi ah u mamnuuci doonto adeega fariimaha degdega ah ee whatsapp sida ay sheegeen ilo ku dhow aqalka kale Mareykanka tani waxay qayb ka tahay dadaalka dowladda ay ku doonayso inay ku adkayso xakamaynta isticmaalka baraha bulshada ee gudaha dalka ruushka saddex ilo wareed ayaa waxay sheegeen in xafiiska madaxweyne Vladimir Putin uu markaasi qorsheynayo in aqalka baarlamaanka hoose ee dalka ruushka ee loo yaqaan Duma inay soo saaraan go'aan si dhaqso ah lagu mamnuucayo whatsappka oo ay leedahay shirkadda Mareykanka laga leeyahay ee Meta waxaana la sheegayaa in lagu bedeli doono midka lagu magacaabo Max oo ay leedahay shirkadda leedahay VK shirkaddan ayaa waxaa la sheegayaa in ay bedeli doonto whatsappka Meta ay leedahay si markaasi arrintan wax weyn looga qabto waxaana la leeyahay arrimaha lala xiriirinaya waxaa ka mid ah sirdoonka Ukraine oo la sheegayo in ay isticmaalaan in ay arrimo xog ah ku gudbiyaan whatsappka isla markaasna ay ku helaan xogtaasi inkastoo whatsappka uu yahay abka ugu caansan ruushka cadaadis xoog leh ayuu imika la kulmayaa mas'uuliyiinta ruushkana waxay leeyihiin waa in lagu bedelaa abkan Max kaas oo ay sheegeen in uu yahay mid markaa dalka ruushka laga leeyahay dagaalka hadda wuxuu marayaa marka baraha bulshada waa hagaag inta ayaan kusoo gabagabeynaya caawa barnaamijkii qubanaha waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha allah inta ka horeysa nabadgelyo